hal qof hadduu magaalada madiina uu ka bukoodo baa la yidhi muslimiinta magaalada madiina ku nool dhammaantood ninka way soo buuqanayeen ninka magaalada madiina ku cusub ee qariibka wuxuu u malayn jiray waxaa dad ninkaas soo ziyaaranayo dhan inay qaraabo yihiin qaraabanimo kumay ziyaaranayn waxay ku ziyaaranayaan islaamnimo ku buuqanayaan زين العابدين علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم ننوحوها على البيت النبي كمده صلى الله عليه وسلم ودنتي والله عاصي hal mar kaliya magaalada Madiina waxa soo baxdo loo ogaaday 200 oo qoys oo masaakiin oo aan dharigooga dab la saarin wala shuureeyo waxa la yiri say ku dhacday 200 oo qoys hal mar kaliya in la ogaado inay fuqara yihiin hatta masaakiin ma fuqara miskiinku baa la yiri waa ka wax cuna maanta haysta laakiin faqiirku waa ninka caawar reerkiisa waxba oolinba meel uga soo qaadan aan garanayn marka waa la yaab iyo kiiba la weydiyo lagu yiri say ku dhacday waxay garan maynee habeen walba saacadaha dammo manaqalada hortooda ka qaadanayna raashinkii maalintan ugu filaa cidda keenaysana kama warqabna annagu raggii markaa maydka imaamka maydhay nin ka mida gacanta taagay wuxuu yidhi ila nebigu sal lla ly slam waa kiila ninka mayd maydha waxuu ku arkayna u qariya o astura buu nebigu yidhi isagana ceegiisu akhiro u asturaa ninka imaamku nin ahlbeydka nebigu cadab buu ahaa carabiya laakiin dhabarkiisoo dhan uu madoobaa baa la yidhi inaan sheegnaan diidanayne laakiin haddaan sheegaynaa bay yidhahdeen dhabarka imaamku dhabar madow buu ahaa uu ka duwanaa jirhkiisa waxaa la ogaaday 200 ee qoys habeen walba inuu raashinkooga qallada u hordhigayay naftooda umay noolayn inaga keena maalqabeenka waxaa laga yaabaa naftiisa iyo ciyaalkiisa u nool yahay ayagu waxay u noolaayeen ummadda u noolaayeen dhaqaalaha ay ummadda ku anfacayeen dabeecadda wanaagsan bay ummadda wax ku tarayeen aqoonta diineed ay ummadda dheer yihiin bay ummadda ku anfacayeen caqligoogay ummadda ku anfacayeen codkarnimadooday ummadda ku anfacayeen ibnu cabbaas radiyallahu canhuma ayaa arkay nin masjidka dhex fadhiyo aad u murugoonayo sidaa madaxa u haysta uu u tegey wuxuu yidhi maxaa ku helay mukaatib buu ahaa mukaatib waa kan addoonka sayidkiisii ay kala qorteen ee yidhi magaaladan gali waan soo xoogsani lacagtan isku xorayn lahaa baan kuu keeni wakhtigaana ii qabo kaasuu ahaa markaa wuxuu yidhi sayidkaygii xilligii aan la ballamay inaan lacagta u soo dhammaystiraa la gaadhay lacagtiina ma haya buu ku yidhi ballanka say u ilaalinayaan baleeg markaasuu ka yidhi dee ma kaala hadlaayoo wakhtiga ha ku yar dheereeye markaasuu in axbabta haddaad jeclaatid buu dhahaa way fiican tahay buu ka yidhi inamari waa kuu raaciye albaabka markay u dhowaadeen buu ku yidhi anasiita maa kunta fiihi ay min alictikaaf ya bna cammi rasuulillah buu ka yidhi ictikaaf baad ku jirteen miyaad ilowday buu ka yidhi markaasuu yidhi ma ilowsani waan xasuusanaya inaan ictikaaf ahay ictikaaf qofka hadduu ka bax masjidka uu jabaya ictikaafka laakiin waxaan ku hayaa buu yidhi xadiisaan ka maqlay nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu nebigu yidhi man mashaa ilaa xaajati akhiihi qof walaalkiya xaajadiisa inuu u soo qumiyo u socda ama ha u soo qumiyo ama arrintaas inayba xallismine waxa uu ka fadli wuxuu la ajar yahay buu nebigu yidhi 10 sano qof ictikaafay buu la ajar yahay buu rasuulku yidhi muhimmaat alumuur umuurtu sida u kala miisaan weyn tahay bay saxaabadu yaqaaneen iyagu ictikaaf inuu masjidka fadhiyaa waa ictikaaf waa cibaado shakhsi ah walaalkii inuu wax taraana waa cibaado caam oo ummadda anfacaysa weeyaan khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka ayaa u khayr badan ninka dadka wax tara u khayr badan buu nebigu yidhi marka inakuna walaalayaal waxaa laynaga rabaa inaan ku dayanno dadkaas oon ummadda aan anfacno maxaan ku anfacaynaa ummadda
kii dhaqaalaha iyo dhaqaalihiisa diinta ku bixiyo kii cilmi leh cilmiga ummadda ha baro kii waqti ilaahay si waqtigiisa dacwad iyo diinta ha ku bixiyo kii caqli ilaahay si caqligiisa ummadnimada ha kaga shaqeeyo inagu dadkeena afkan ku hadla af Soomaaliga dadka ku hadla dadka dad ugu liitaan ah caalamka runta hadii la sheego waxaan nahay ummad aan korayn ma korno Soomaaligu ma koroma ma korays carruurta soo ma jirba mid ma korays leeyahay ummad aan koray ka warrama ummad qabiil aan ka korayn qori aan ka korayn qaxooti aan ka korayn qaad aan ka korayn afartaas waa qaaf ka kacan qaaf qabiil qori qaxooti iyo qaad qabqablana ku dar qabqable nin walba imika reerkiisu halkay joogaan ayuu rabaa inuu ka dhiso maamul goboleed waan siyaraynaynaa sheekh Mustafa yiri war caalamka babalaashka badan baa lagu tartamayaa maanta adduunka halka ummaduhu ay doonayaan ummad badan inay noqdaan adduunka la tartamaan inaguna reer baan isku haysanaa jilib oday baa la isku haysaa oday taariikh yaan bari aad u mutaabiciyay dadkan Soomaalida kitaab aan ka arkay matxaf ku yaala Harar futuuxul Habasha kitaab la yiraahdo waa 600 oo sano ka hor qiyaasi kitaabka wax la qoray Itoobiya aad ula dagaalantay Imaam Ahmed Guray markuu wadankan geeska Afrika u yimiday wuxuu u yimiday dadka dhulka ku nool oo qabiil isku laaya qabiil iyo geel Soomaali isku leeyahay marka ina kornaan u baahanahay maanta oo kor u socono oo ku shaqeyno ummadnimo oo dadkeena wacyi gelino oo dadka shaqaal loo sameeyay shaqadooda ay ka shaqeeyaan inaga shaqadeena waa diin inaan risaalad gudbinaa Ilaahay noogu tala galay shaqadii la noogu tala galay markaan qaban weyne shaydaan bayna shaqaalaysiisay markaas inagii baa markaas shaqo iska dhiganay inagii baa shaqo iska dhiganay markaas 32 sano ummad qaxaysa ka warrama habeen dhawata madaarka Addis Ababa markaan soo maray meeshaan ka wareega waa Soomaali bay kaga soo baxaya dhalinyar xagga u socota Uganda xagga u socota Senegal xagga u socota Turkiya xagga u socota Brazil kuwa xaramka tagayna xaramka ka tahriibeen waa dhaweyto halka warrama halkeen ku soconaa markaa bal sheeg kuwii qurbaha joogay baa ooyay oo Ilaahu seenu noqonaa kii dalka joogayna wuxuu leeyahay seenu tagaa anu waxaan igula talin lahaa dhageysiga si fiican baad u soo camirteen diinta ka shaqeyno waxaan ka shaqeyno diinta ka shaqeyno dacwada u baxno ilaahay kartibu ina geliye inaka kartideeni maanta cid la ku daadinay maanta